kulankii isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Awdal iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Abdiraxmaan Axmed Cali ayaa maanta ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Awdal. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Awdal iyo sidii loo xakameyn lahaa hay'adaha madaxa bannaan ee ka howlgala guud ahaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay dhammaan isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Awdal, xogayaha fulinta ee gobolka Awdal iyo ku-xigeenka gobolka Awdal. Kulankaasi ayaa markuu soo dhamaaday waxaa ka warbixiyay barsaabka gobolka Awdal Abdiraxmaan Axmed Cali waxaana uu sheegay ay taariikhdu tahay 29 bishii 3aad 2018 waxaan halkan ku qabanay shirkii isuduwayaasha gobolka Awdal oo aan u qabtay anigu waxaana ka soo baxay warmatiyeed dhowr qodob ah bilaabo ka koowaad mushkiladaha xagga nadaafadda iyo sidii wax looga qaban lahaa oon kala tashan doono mas'uuliyiinta degmada maadaama uu soo dhow yahay waqti roobaadkii oo qodob koowaad. laba in dhammaan NGO iyo cid kastoo shaqo ka qabanaysa inay soo maraan wasaaradda la leeyihiin leen ministerka u yihiin iyo maamulka gobolka. horaan u sheegnay taa faahfaahiyo hay'adaha ama NGO ahaadaan ama international ahaadaan hay'adii gobolka doonaysa inay wax ka qabato wax kastaba ha ahaatee waxay marka hore iska soo report gareynaysaa soo gelaysaa xarunta gobolka. annaga u dirayna marka halka haddii emergency yihiinna annaga tilmaamayna haddii ay yihiin cid wasaaradda ku xiran yihiin oo leen minister yihiinna wasaaraddoodii baan u diraynaa. laakiin la iskama soo gelayo lagamana bixi karo degmooyinkeedana looma bixi karo annaga oo aan unagu fasaxno mooyaane. sidoo kale magaalada xitaa kuma qaban karaan seminar aanaan ogeyn. waxaanuna siinaynaa hoteelada iyo dadka hoolasha leh shirarka lagu qabto meeting holiska inaanu waraaqan u siin doonaa. seminar iyo shir aanaan ogeyn lama qaban karo. saasaan ku siinaynaa ayagana ku wargelinaynaa in la ilaaliyo waqtiga shaqada. waa dee shaqaale xukuumadda isuduwayaashu anaguna waa ka badbaanahay waqtiga shaqada in la ilaaliyo oo xafiiskiisa nin walba laga helo waqtigii shaqada la soo gelaya waqtiga laga baxay. waan ku kormeeri doonaa insha Allah billahi karim insha Allah billahi karim waan ku kormeeri doonaa xafiiska shaqadiisii iyo waqtigii shaqada inuu joogo. number 4 amba 4 in la soo yimaado ama kulanka dambe dhaco 12 bisha afraad oo ah khamiis laaf khamiistan marka khamiista laga dhaafo khamiista soo socota marka la dhaafo khamiista ku xigta oo ku beegan 12 bisha afraad 2018 shirka dambe la qaban doono kadibna ay ahaan doonto khamiis laaf. وسكريا عبد الشيخ فارح سكريا سحانة تلفزيون عالمي GTN TV مقالة بورما.